soo dirtay beesha reer Isaaq kuna wajahan beelweynta Daarood gaar ahaan beesha Ogaadeen. Baaqan oo aad u dheeraa waxaan idinka soo qaadaynaa qaybtii ugu muhiimsanayd oo u dhignayd sida tan. Waxaan walaalahayaga Daarood gaar ahaan Absame sii Ogaadeen u sheegaynaa haddaan nahay beesha reer Isaaq inay annaga nagu dhacday arrin aan cid kale ku dhicin oo aan haba yaraateen la qabin, taasoo ay noo geysteen Mustafa Cagshar iyo walaaladii rag iyo dumar iyo waalidiintoodba. sida ay reer Isaaq kale wada ogyihiin waxaa jirtay shir lagu qabtay magaalada Gunagada lana magac baxay shirkii Ufuuf, kaasoo raggii reer Isaaq ee maalintaas shirka isugu yimid intay sanka isqabteen ay dhammaantood hal mar wada dhaheen ufuuf ufuuf ufuuf. waxaana ugu hor bilaabay Shaakir oo Cabdi Maxamed oo macallin oo ah nin laga caqli badan yahay. haddaba shirkaas ay dhammaan reer Isaaq Mustafa Cagshar ku caayeen ee la magac baxay ufuuf ciddii ka qayb gashay oo dhan Mustafa Cagshar wuu codadaysan yahay. waxaase isaga nooga daran haddii aan nahay reer Isaaq Cabdi Cali Urur oo Mustafa Cagshar walaashii qaba, Maxamed Cagshar, Mustafa Cagshar hooyadii iyo aabihii Cagshar, oo nin kasta oo reer Isaaq ah oo xafiiska ama guriga ugu taga Mustafa Cagshar waxay ku dhihi hebel ayaa maanta ku yimid. ma ogtahay inuu shirkii ufuufta ee Gunagada uu ku jiray? weliba waxaana loo sheegay inuu sanka aad isu hayay, kadibna Mustafa oo calaysan ayaa ku dhihi hebelkii guriga ama xafiiska ugu yimid iga bax xafiiska ama guriga. marka Ogaadeenowna ogaada ilma adeerayaal dhibkaas ayaana haystee. waxaana loo haystaa shirkii ufuufta ee Gunagada ka dhacay sanado ka hor. waxaa intaas noo dheer inay reer Cagshar oo Mustafa Cagshar ugu horeeyay shirkaas dartiis magaalada Gunagada iyo reer Haruunba uga jireen mashruuc kasta oo horumarineed oo degmadu xaq u lahayd, oo xataa wixii u soo baxa ay ka kansalaan. waxay si gaar ah reer Cagshar dhibaato aad u weyn ugu hayaan Bahasan, jilibka Bahasan, maadaama oo loo sheegay inay shirkii ufuufta sanka aad isu hayeen sida ay Cagshar iyo Cabdi Cali Urur Mustafa u sheegeen. waxaa kale oon idiin haynaa sir culus oo ah sabab ka mid ah sababaha oo Mustafa Cagshar uga noqday 25 degmo inay tahay dadka ka soo jeeda degmada Dig ee ka qayb galay shirkii ufuufta inay tiradoodu badnayd, islamarkaana ay ahaayeen kuwo aad ugu qayleeyay ereyga ufuufta. waxaa iyaguna la mid ahaa oo ay Nimco Cagshar dacwad ka gudubsay jilibka degmada Bilcilbuur ee Bare Ibraahim. sidaas darteed ayay Mustafa Cagshar ku yidhi wiilkiisa Mustafa, waxaynu reer Ibraahim iyo guud ahaan reer Haruunba ka aarsanaynaa oo keliya haddii aad laba degmo ka kansasho oo uusan wax xildhibaan u soo bixin haba yaraatee, markaasunbuu ciilkoodu ina dayn. musuqa hareeya xafiiska biyaha waa midka ugu cajiibsan ee ka jira maamulka Jigjiga. haddaba oolkii aadaadka dilooday shacabka dowlad deegaanka Soomaalida haddaan tusaale kusoo qaadana midka biyogelinta magaalada Dhagaxbuur oo miisaaniyadda loogu talagalay iyo biyogelintu aysan islahayn, waxaana loo qorsheeyey lacag ka badan 500 oo milyan, halka magaalada Qabridahar oo adhigeedana loo qabtay 25 milyan oo aan biyogelin ka samaynaynin balse laba magaalo oo isku meeqaan kula deegaanka in sidaas loogu kala yaahdo. waxaana biyogelinta 25 milyan ah ee magaalada Qabridahar loo qabtay aysan biyogelin ka samaynaynin hal xaafad oo ka mid ah xaafadaha waaweyn ee magaaladaasi Qabridahar iyo qalabka biyaha ee xaafadaas oo aysan ku fillayn. haddaba yaxda iyo duusiga cad ee lagu sameeyey shacabka magaalada Qabridahar kasoko waxay cadaynaysaa islamarkaana xusid mudan in Mustafa Cagshar horay afkiisa looga hayay inuu yidhi Qabridahar wax horumara uma baahna 20 sano ee soo socota. Cabdi Hure oo ninka ku matala gobolka Qoraxay ahna aha wasiirka xafiiska biyaha, sidoo kalena xubin gudub fulina una dhashay magaalada Qabridahar, sidoo dameerkiisu ku siiyey inuu shacabka u mataliyay oo 25 milyan oo hal xaafad ah xitaa waraabinaynin uu qabto, halka Dhagaxbuurna ay baraare ku jirto dhanka biyaha. annagoo aan ka xumaanaynin horumarkeeda, haddaba eexda iyo dulmiga cad ayaa ka muuqda marka loo eego magaalada dariskeeda ah. taas waxay cadaynaysaa inuusan Cabdi Hure matalin gobolka Qoraxay balse uu u xagliyo shacabka Dhagaxbuur isagoo kursiga ku ilaashanaya raaligelinta Mustafa Cagshar. haddaba waxaan jawaabta u daynay shacabka magaalada Qabridahar siday ku ogolaadeen dulmiga cad ee lagula kacay ee weliba ku sameeyey kii ay waxqabad iyo waxtarba ay ka filayeen waa Cabdi Hure.
raadinta wararka xaqiiqada ah ee u kurgasho bahda idaacadda Faraj waxaan ku soo ogaanay dulmiga deegaanka ka jira oo Mustafa Cagjar ku hayo waxaa barbar socda midka uu magaalada Dhagaxbuur oo halka uu ka soo jeedo Cagjar laftigiisa oo si kala heliyo una kala yahay qabiilada reesaad haddaba beesha reer cali oo ah beesha Cagjar uu ka dhashay ayaa iyagoo isku halayn iyo ayso ka haysta Cagjar laftigiisa waxay xaqdarro iyo dulmi weyn ku samaysay beesha reer Haaruun dulmiga lagula kacay ayaa ku qotomay inaysan xuquuqdii ay ku lahaayeen magaalada aysan ka helin iyagoo ah shacabka ugu badan ee degan magaalada Dhagaxbuur iyo nawaaxigeeda malaha wax maamul ah wax madaxafiseed ah ganacsato fagaarayaasha bulshada kama soo muuqdaan waxgaradka beesha reer Haaruun dhanka kale xaafadaha ay ka degan yihiin magaalada Dhagaxbuur ma haystaan waxaba yaraatay kaabayaal dhaqaale ah sida biyaha caafimaadka dadka iyo kuwa xoolaha adeegga leerka waxbarashada jidadka isku soo wada duubo tootali haba yaraatee wax xaq iyo xuquuqa kuma laha reer Haaruun magaalada Dhagaxbuur marka ma ninka u kala yahay reerkii uu ka soo jeeday ayay cadaalad ka sugayaan shacabka dowlad deegaanka waxaan ugu baaqaynaa inay iska qabtaan dulmiga cali oo Cagjar iyo xulfadiisa tiim Nairobi ay la yimaadeen deegaanka